fadhiga 23aad ee kalfadhiga 46aad golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa looga dooday u qareemida xaaladda sharci ee maxaabiista dambiyada burcadbadeedka ugu xiran Puntland. Fadhiga waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeen koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa dood sharci ah ka yeeshay u qareemida xaaladda sharci ee maxaabiista dambiyada burcadbadeedka ugu xiran Puntland iyagoo soo jeediyay in dib u eegis lagu sameeyo xukunada ay ku xukuman yihiin. waxa laga hadlayaa qolada maxaabiista oo meesha ku xiran baa laga hadlayaa. anigu laba talo ma raba inaan ka bixiyo. waxa fiican horta in xeeraraalihii aynu u yeerno oo aynu dhahno bal nimankan xaaladooda iyo qaabka loogu qareemi karo iyo arrintooda waxay tahay warbixin naga siin xeeraraaliyada waa fiican tahay. waxaan kaloo ku tala bixin lahaa guddiga xuquuqul insaanka in loo diro oo la yiraahdo warbixin fuula nimanka nooga keena markii warbixinta la helo baynu wixii tala ku dirsan karnaa. waa Soomaalidu waxay tiraahdaa war la helaa tala la helaa. hase yeeshee horta marka ugu horeysa Cabdicasiis waa sikin gareynayaa generaalka xildhibaan generaalka. waxaan kaloo leeyahay war arrintu meeshay ku jirto iyana ka leexleexane cidda awoodda u leh waa madaxweynaha aan ka waraysano arrinta. haddaynu awood u leenahay siideyntoodana isagaa inoo sheegi doona, haddaynan awood u lahayn siideyntoodana iyagaa awood inoo sheegi doona. adduunku waa sibuu wada shaqeeyaa, laakiin innaga doorkeenna u qareemidaahi waa inuu shaqeeyaa. anigu xogaal baan ka ahay maxaabiista sanadkii termka horreey waxaan ahaa guddiga xuquuqul insaankan ahaa, haddana waxaan ahay guddiga cadaaladda. shantii sannadood hore waxaan ka shaqaynayay jeelasha iyo meelahaas baanu tegtegi jiray. nimanka xidhan anigu rag badan baan ka aqaanaa ee maxaabiista ku xidhan burcadbadeedka. waxaan weydiiyey war xagee laydinka qabtay. rag badan waxay laga qabtay badda tan ku beegan ereyadeena laga qabtay. lama siin markii la geeyay salis lama siin cadaalad xukun lama siin. heshiis baa laga galay haddaan idinku celino wadankii rafcaan miska diidaysaan. rafcaan xaq bay u leeyahay inay helaan nimankaas, ama ha laga yimaado marka lagu saxiyaanayo ama yaan la khiyaanin horta rafcaan xaq bay u lahaayeen. intii ka dambeysay ciddii xukuntay waa loo yeelay dhowr jeer lala hadlay, waxba jawaab lagama hayo. bini'aadamkuna xuquuq leeyihiin inay iska xidhnaadaan xukuma jiraan. anigu waxaan marka qabaa in horta xeeraryaha guud aynu waraysanno dabeedna wixii halkaa inooga soo baxa aynu ku go'aan qaadanno. dood dheer kadib guddoonka golaha wakiilada iyo xildhibaanada ayaa isku raacay in loo yeero xeeraryaha guud ee Puntland, wasiirka cadaaladda iyo taliska ciidanka asluubta Puntland si su'aalo looga weydiiyo maxaabiista dambiyada burcadbadeedka ugu xiran Puntland maalinta Sabtida ee soo socota. gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ku dhawaaqay go'aanka golaha wakiilada ee u qareemida xaaladda sharci ee maxaabiista dambiyada burcadbadeedka ugu xiran Puntland. saddex qodob baan kala soo jeednaa soo koow in loo yeero xeeraryaha guud wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda cadaaladda iyo IJS. laba in madaxweynaha laga weydiiyo. saddex in gobolka u qareemo dadka magaca loo haysto. ka ugu dambeeya horta ajanteena kuma jirin mawduucaynu ka hadlaynana maaha. isagoo halkaas ku haray sakan buu helay, laakiin sidaa daraaddeed isagoo halkaas ku haraya, laakiin dadka magaca loo haysto loo qarayni doonaa waddada kale ay leedahay baynu u mari doonaa. marka mudanayaashii isku sigin gareeyay raalliga ka hadla waa kharji mawduuc oo arrin ka baxsan mawduucaynu maanta ka hadlayno. madaxweynaha waa halka u dambaysay ku dambaynaysa way gaari doontaa. innaga iyo madaxweynuhu kala fursamayna in arrintan isla tagno, laakiin waxaan ku hormaraynaa inaynu hay-adihii shaqada lahaa oo dhan aynu u yeelno, kala doonno, xog helno. xogta waataynu madaxweynaha ku abaarnay. markaa mudanayaal waxaan ku soo ururnay annagu ku shirguddoon ahaan ay nala tahay inaan xeeraryaha guud wasaaradda cadaaladda iyo IJS aan qoraal u dirno maanta berrito ay soo diyaargaroogaan maalintan sabtida inagoo laba
jimcaha khamiis aan hawshan kale aan sashaashay mudanayaashuna ayaan rabaa shaqeynaya ay masaxda soo dejiyeen oo la wada farsan yahay aan sabtida soo qaadano iyo maalin shaqo oo aan haddii ay ka dhigo aan barnaamijkan ay iska soo gobay marka mudanayaa berrito waxa aan ku maqanahay xeeraalihii iyo wasaaraddii cadaaladda iyo ay jeeshii cid shaqo laga xidhay jaamac cabdiraxmaan axmed puntland TV garowe.